tan iyo markuu bilowdo dagaalka ka dhanka argagixisada waxaa laga saaray deegaano iyo sidoo kale degmooyin hor leh waxaan soo gaarnay halkan oo ah deegaanka Juxay ee gobolka Shabeellaha Dhexe waa halkii toddobaadyo ka hor ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka ay ka saareen argagixisada godadka idin muuqda waa difaacyadii ilaahayeen argagixisada iyagoo halkan sidoo kale ku duugay meydad hor leh oo laga dilay halkan waxaa lagu dilay tiro badan oo milishaadka argagixisada ka tirsan sidoo kale waxaa lagu dilay horjoogyaal sare oo argagixisada u qaabilsanaa dhanka tashkiilinta deegaanka Juxay waa deegaan hooda sida idin muuqata geedahan aad u jeedaan waa halkii ay ku dhuumi jireen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaana ka saaray waxyaabo ay meelahan kaga tageen sida kabahan oo kale iyo waliba waxyaabo kale oo biro iyo sidoo kale fiilooyin la xiriira oo ay halkan kaga carareen markii laga soo tago deegaanka Juxay in uu hood yahay sidoo kale waxa uu weeliyaa in uu yahay deegaan inta badan qofka jooga aan loo jeedi karin laakiin ciidamada xoogga dalka way ka saareen argagixisada waxaan aragnay gududkii laga saaray iyo sidoo kale difaacyadii ay sameysteen Juxay waxa u dhaxaysaa deegaanka Guulane iyo sidoo kale deegaanka Tawfiiq ee labaduba ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna halkaan ka mid tahay meelaha ay sida weyn argagixisada u deganeed waxaa la rajeynayaa in gulufka ka dhanka argagixisada la sii wado inta looga xoreynayo dalka oo dhan Hanad Maxamed Karaama warbaahinta qaranka deegaanka Juxa